munaasabaddan oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay diiradda lagu saarayay kaalinta haweenka Soomaaliland kaga jiraan waxqabadka xukuumadda gaar ahaan waxaa si gaar ah loogu soo dhaweynaya haweenka Soomaaliland ee darajooyinka ciidamada qaatay gaar ahaan kuwa qalabka sida taasoo ay soo agaasintay marwada madaxweynaha Soomaaliland waxaana halku dhig looga soo dhigay haweenku waa halbowlaha dalka taliyaha madaxweynaha ee arrimaha haweenka ee Soomaaliland Marwe Amaal Xaaji Miisaan oo ugu horeyn madasha xafladaasi ka hadashay ayaa ku dheeraatay ujeedada ay u soo qaban qaabiyeen waxaana ka warantay kor u kaca tirada iyo tayada haweenka Soomaaliland taasoo si cad uga warbixisay xukuumadda ay ka tirsan tahay ee uu hogaaminayo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxqabadkan indhaha laga qarsan karin ee ku talaabsatay inta araga iyo indhaha caafimaadka qabsada lihiba indhaha ku kala qaado waxqabadka xukuumaddu ay samaysay wadooyinka maanta dalkii oo dhan isku xidhay horumarka la gaarsiiyay qofka bid'aanka shaqada markuu ma dhamayn karo laakiin uu isaba wadaa maalinna lagama nasto maalinna lagama fadhiisto horumarka dalka la gaarsiiyayna aad iyo aad indhaha loogu kala qaado agaasimaha xafiiska samafalka ee Soomaaliland Aamine Maxamuud Diriye oo iyaduna la hadashay dadkii ka qayb galay munaasabadaasi ayaa daboolka ka qaaday heerka dawladda Soomaaliland gaarsiisay guud ahaan dalka sida haweenka ka qayb qaatay bay tiri talada dalka waxbarashada bilaashka laga dhigay darajooyinka lagu tahay ciidamada kala duwan lacagta laga bedelay gobolada bariga iyo waliba arrimo kale oo tiro badan wasiirka xogeenka caafimaadka ee Soomaaliland Marwe Nimco Xuseen Qowdhan oo kamid ah mas'uuliyiinta halkaasi ka hadashay ayaa istul taagtay muhiimadda ay haweenku u leeyihiin dalka iyo dadkaba iyo adeegyada kala duwan ee caafimaad ee loo sameeyay dadweynaha iyo waliba sida ay markasta wasaaradda caafimaadku ay uga warayso dadka aan awoodin goobaha caafimaadka gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee xisbiga talada dalka ee kulmiye Mujaahid Maxamed Kayn Axmed oo isaguna madashaasi ka hadlay ayaa hambaliyay bogaadin u diray guud ahaanba ciidamada Soomaaliland kaasoo si gaar ah u soo dhaweeyay haweenka qaatay darajooyinka waxaanu madasha xafladaasi sharaxaad kaga bixiyay darajooyinka qiimaha ay kala leeyihiin taliyaha guud ee ciidamada booliska ee Soomaaliland sareeye guuta Cabdilaahi Fadal Iimaan oo waliye taliye ku-xigeenka labaad ee ciidamada asluubta gaashaanle sare Xasan Cali Dheere oo iyaguna munaasabadaasi ka hadlay ayaa hambalyo u diray guud ahaanba ciidamada Soomaaliland waxaana ay ka warrameen kaalinta ciidamada Soomaaliland ay kaga jiraan guud ahaanba ammaanka dalka taliyaha guud ee ciidamada booliska ee Soomaaliland sareeye guuta Cabdilaahi Fadal Iimaan ayaa madasha xafladaasi waxa uu kaga dhawaaqay inay ciidamada booliska ee haweenka ee Soomaaliland ay maamusho gaashaanle Hibo Saala Siciid oo ugu darajo sareysay ciidamada haweenka ee booliska ee qaatay darajada ee lagu casumay munaasabadaasi gaashaanle Hibo Saala Siciid oo iyaduna madashaasi ka hadashay ayaa u mahadnaqay madaxweynaha Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo ku dhiiraday bixinta darajooyinka ciidamada qalabka sida waxaanay halkaasi uga mahad celisay marwada madaxweynaha Soomaaliland ee iyadu xafladaasi ku maamustay munaasabadaasi ayaa iyaguna waxaa ka hadlay mas'uuliyiin kala duwan marwada madaxweynaha Soomaaliland Marwe Aamine Sheekh Maxamed Jirdo oo gabagabadii munaasabadaasi ka hadashay ayaa ka warantay ujeedada ay u samaysay xafladan taasoo ku tilmaantay dhiirigelinta haweenka Soomaaliland ee ku jira ciidamada qalabka sida ee Soomaaliland ee qaatay darajooyinka sharaf bay maanta intay halkan inaan idinku yeedho inaan erayadaas maxay tahay idinku yiraahdo dadka kalena idinku yiraahdaan oo la idin hambaliyeeyo waan idin ducaynaynaa ilaahay waxaanu ka baryaynaa kuwii dalkooda iyo dadkoodaba daryeelay inaad noqotaan hawsha culus ee la idin saarayna si gobonnimo ah oo sharaf looga soo baxa xafladaasi waxaa kala qayb galay marwada madaxweynaha Soomaaliland wasiir ku-xigeenka shaqada iyo arrimaha bulshada gudoomiyaha ururka qaranka ee NAW gudoomiyaha xarunta agoomaha garabada haweenka ee xisbiga talada dalka ee kulmiye iyo waliba madax kale oo ka tirsan ururada bulshada rayidka